barnaamijkan oo lagu taageerayay hadalkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka jeediyay furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee ahaa in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacayso Soomaaliya isla markaana la doonayo in golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ay dad ku yeeshaan shacabka magaalada Muqdisho. ugu horeyn waxa warbaahinta si wada jira oo la hadlay madaxa arrimaha bulshada degmada Buurruba iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada waxayna sheegeen in ay mar walba taageerayaan dawladda federaalka Soomaaliya ee ay hogaamiyaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. waxaan diidaynaa dadka golaha shacabka matalayo oo mucaaradka dowladda federaalka ka soo jeedna kuwaas si damayna loo doon inaan la dhowran kaca ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo qarannimadooda istaagtay oo mushaaraadkooda midooda sii qabanayo inay ka qabtaan dowladda garab istaagaan dowladda u shaqeeyaan waxa mucaaradkan si hooseysay laga saaro dadka intaasan taasoo macno u yahay abaana maanta xuquuqda inaan soo dhaweyno kalafadhigii baarlamaanka ee maalinta weydaa soo dhaafnay shalay ogtihiin 300 iyo xildhibaan baa ka qayb gashay hal xildhibaan oo ka mid ah iyo kuwa isqabinayay yaa filimbi yeeriyoon saad ogtihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo waa shakhsi geesinimo iyo daacadnimo iyo Soomaalinimo ay isugu tagtay wuu cadeeyay 329 xildhibaan hal xildhibaan iyo filimbi ka yeerinaya ha iska baxa ninka filimbiga yeerinaya madaxweynaha loo cadeeyay ninka asaga filimbiga yeeriyay waxaa soo dirsaday dowladaha Imaaraadka Kenya iyo dabadhifka Soomaaliyeed baa soo diray xildhibaan Soomaaliyeed ma ahan waxaan ridinaynaa cid la qabta dhammaan jaajuuska iyo dabadhifka iyo dadka maxaa ku yidhaahdaan dowladnimada Soomaaliyeed oo hana qaaday lidiga kuwa ayaa ridinaynaa waxaan soo dhaweynaynaa dowladdanada sharafka leh waxay dowladda ku mahadsan tahay shaqaalaheeda oo asaga xidhinta baarlamaanka uu ka mid yahay sida Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha loo doortay hal maalin mushaaradiisa muuna waayin ciidamada xoogga dalka maalinba maalinta ka dambayso lacagtooda way sii kordhaysaa shaqaalaha dowladda lacagtooda way sii kordhayaan amniga dalka waa soo hagaagayaa kooxaha nabadiidka oo laga adkaanayaa waxaa raba dalka in ay gacanta ka bixiyaan dad duuraqaata ah oo jaajuus ah oo uu ka mid yahay rajiimkii Axmed Madoobe oo aan miskiin ka dhignay haddaan nahay dowladda nabadda noolay waxaan rajaynaynaa dadweynaha Buurruba saa la socotaan Buurruba waxaan rajaynaynaa inayna gabar dambe aysan u dhimanin dhiigbax dhammaan hooyadii baa nagu qulqulayo waxaa nagu soo qulqulayo dowladdii waxaana laga qaaday ganjeelkii waamada ka soo taagnaayeen oo Axmed Madoobe uu noo dhigay baa nalaga qaaday barwaaqaa noo soo socoto maanta dowladda Soomaaliya way nagu soo bilaabatay waxaan rajaynaynaa gabdhaha hooyooyinka dhammaan waxay dowladdaneena soo gaarsiisay adeeg caafimaad waxayna soo gaarsiisay wax kasta oo dadka u baahan yahay. ugu dambeyn waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Buurruba Cali Shariif Cabdullaahi isagoo sheegay in mar walba shacabka iyo maamulka degmada Buurruba ay taageerayaan dawladda federaalka Soomaaliya kana soo horjeedaan wixii ka soo horjeeda dawladnimada. waxaan ridinaynaa waan cambaaraynaa kalafadhigii baarlamaanka intii filimada oo ka istaagay waa maxaray dowladda asaga iyo talaa ma sharaxdan iyo mucaaradkooda waxaan leenahay hadda waxaan leenahay
دولة ما يكون الخطأ إلى عدالة إلى عصمية إلى أحضار قوانين تاسس لكن على ضيوف أركن بعد ما يروح غير الخطأ يورنا دولة ما يكون الخطأ وما لها الصعب على الضيوف عندما يصرفنا دولة ما نبغله هذه من حكم أن نبغه ولكن دولة كان يسوي جارته قوي كبير ما تعرف جرم إنسان وكل إنسان ما ينفع عقب ما تفعله القانون من الجهالك إلى عمرك إلى وحدة دولة الزوجة السياسية إلى ما نأخذ تسليم وأمن رسول الله القانون وهو من البلسوة ما أمرنا الله فما تعمل الإنسان وعندنا القانون الدولة كما هنا يعرف عطوه وإطلاقا هذا كفر أحسن أجمل الخطوة وما نعرف Bishaar Ibraahin Aadan warbaahinta Waamo degmada Buurruube ee gobolka Gado.